kusoo dhawaada kanaalka Hayaanka Nolosha. Fadlan haday tahay markii kuugu horeysay ee halkan soo booqato subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada iyo sheekooyinka aan halkan soo dhigno. Maanta muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa 7 sababood oo rajada kugu jirta aad u bedeli karto guul. Waxay ila noqotay inay aad u fiican tahay inaan isku dhiirigelino rumaynta rajada iyo riyada inaga dhex guuxaysa. Riyooyinkeena oo dhami waa ay rumoobi doonaan insha Allah. Waxaan u baahanahay oo kaliya inaan sugno bedelno aragtiyada maskaxdeena la xiriira hoostana aan ka xariiqno midda saxda ah. Laakiin aan si run ah oo daacad ah ku weydiiyay ma leedahay rajo aad rabto inaad rumayso. Marka taas ogaato ayaad in badan qaadi kartaa wadada aad ku raadinayso guushaada. Xulashadu waa inaad iska dhaadhiciso inaad naftaada ku samaysay cadaalad darro lana qaado hadda kadib dariiqa guusha. Iska cabinta ugu yaraan waxay kugu hogaamin kartaa guul. Qaarkeen dabeecadoodu waa inay isku maaweeliyaan waxyaabo been ah iyo in masiirkooda lama huraanka ay ku sameeyaan qoomamo aan dhamaad lahayn. Dadka qaarna aad bay uga baqaan guusha, laakiin cabsidan inta qalbigooda ay jabin lahayd waxay ka dhigaan inay cagtooda dhulka dhigaan oo ay ficil sameeyaan. Xulashaduna waa in aad qaadaa mas'uuliyadda noloshaada, kamana hor istaagto inay noqdaan hal abuure iyo in masiirkooda ay si fiican uga shaqeysiyaan si ay u dhameystiraan riyooyinka horyaala. Dadka guuleystay liiskooda lama xirin oo inta boog lagu qoray ma buuxsamin. Adiguba waad ka mid noqon kartaa guuleystayaasha nolosha haddii aad diyaar u tahayna u isticmaal tilmaamahan sida nalka oo kale. Qodobka koobaad, indhahaagu ha furnaadaan si ay himilooyinkooda u rumeeyaan. Kuwa guuleysta waxa ay indhaha ku hayaan waxa hareerahooda ka dhacaya. Indhaha iyo maskaxda weligood kama qarsoomaan caqabadaha ka muuqda jirkaada. Waxa ay si farxad leh u yeeshaan saaxiibo cusub. Waxay u sahmiyaan meelaha cusub ee noloshaadu degi doonto. Waxay la falgalaan bulshada inteeda kale iyo xaaladaha deegaanka ka jira. Kuwa guuleysta waxa ay la wadaagaan riyooyinkooda dadka kale, caawimaadna waa u helaan. Kaliya fadhiga kuma sugaan in ay riyooyinkooda gaaraan iyadoo aysan waxba qaban. Inta meel fariistaanna dib ugama qoomeeyaan wixii fursado hore soo dhaafay. Way og yihiin intaasi tahay ficil qaldan. Wax walba oo laga soo gudbayna maskaxda kuma mashquuliyaan. Qodobka labaad, samee qorshooyin. Waa in aad qorshe yeelataa. Riyooyinku waa muraayadaha madow ee jilicsan oo si fudud loo jabin karo. Qorshuhu waa kan noloshaada ka badbaadiya burburka, wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad horay u dhaqaaqdo. Waxaad u baahan tahay kalsooni iyo aragti cad si aad horay ugu dhaqaaqdo. Haddii aad leedahay dhowr qorshe oo mustaqbalka ah kuwaasoo dhammaantood ka mid ah riyooyinkaada, waxaad u baahan tahay midka naftaada ku beeran ee aad aadka u jeceshahay inaad qabato oo aad meel iska dhigto kuwa dadka kale ee aad sida hinaaska ah ugu fakaraysid. Dadaalka kadib ayuu yimaadaa nasiibku, laakiin qofna wax walba kuma helo jiif iyo wahsi joogto ah. Riyooyinka ugu dambeyn guuleysta waa kuwa markii hore lagu soo bixiyay dadaal si tilaabo ah loo qaaday, ugu dambeynna laga gaaray meeshii ugu dambeysay. Inkastoo riyadu tahay awoodda dabiiciga ah ee lagu maro duurka, qorsho waa qariirad faahfaahsan oo ay ka kooban yihiin tixraacyo iyo digniino nolosha la xiriira. Qodobka saddexaad, ku dhiirigeli naftaada in ay guul gaari doonto. Xitaa haddii riyadaadu u muuqatay midii caruurnimadii hore, mararka qaar nolosha ayaa wax ka bedelaysa. Mararka qaarna waxaa laga yaabaa inaad ka tanaasusho. Waxaa jira si dabiici ah oo ay nafteena u soo jiitaan xulashooyin badan oo kala duwan. Taasuna waa habka ugu wanaagsan ee noloshaadu ay ku kala xulanayso rajada mustaqbalka. Si aad himiladaada uga dhigto mid sugan oo dhab ah, raadso dhiirigelin. Waa inay jiraan 2 qof oo riyooyinkooda ku guuleystay kuwaasoo dhinacyadaada taagan. Ha masayrin. Hel hab aad si fiican uga ogaato wadada guusha ay u mareen. Shaki igama jiro inay kuu hayaan xoogaa talo ah oo adiga ku gaar ah. Haddaad ku riyoonayso inaad noqoto gabyaa ama qoraa, tag meelaha ay ku kulmaan dadka noocaas ah. Si fiican ula sheekayso, iyaga ka soo qaado sahayda aad u marayso riyadaada. Qalbigaagu sidaas ayuu ku xaniban yahay oo markan waxaad ku socotaa wadadii rajadaada aad ku rumayn lahayd. Qodobka afaraad, raadi fursadda. Waxaad mar walba la kulantaa boqolaal cudurdaar kuwaasoo dib kuu dhigaya, waana taas sababta aadan riyooyinkaada u rumayn karin. Laakiin runtu waxay tahay haddaad dadaal samayn weysid weligaa ma guuleysan doontid. Haddii aad ku riyootid inaad noqoto qof ku guuleysta ganacsiga ama waxbarashada, waxa kaliya ee aad samaynaysana ay tahay inaad ku dhafarto daawashada TV-ga ama waxyaabo kale adoon samayn wax dadaal ah, weligaa ma guuleysan doontid.
qof kasta waxa uu la kulmaa caqabado nolosha ah kuwaasoo u ogolaan waaya inuu u dhaqaaqo jihada uu rabo, laakiin dhammaantood waa caqabado ku meel gaar ah. waana inaad ka dhigataa caqabadahaas buundada guusha oo sii wad isku daygaada. ha u ogolaan waxyaabaha joogtada ah ee hareerahaaga ka dhacaya in ay ku soo jiitaan. qodobka 5, dhagayso naftaada. waxaad la kulmi doontaa dad badan oo kuu sheegi doona inaad guuldarraysanayso ama in ay riyadaadu tahay mid doqonnimo ah. intaas waxaa sii dheer, waxaad heli kartaa dhowr waddo oo aad isaga joojiso inaad sii waddo riyadaada, taasoo ah niyajab aad adigu qof ahaan isku abuurtay. waxaad u muuqanaysaa inaad rumaynayso hadalkooda, sababtoo ah kuma fududa inaad hesho dood aad isaga difaacdo si aad u sii wadato hadafkaaga. noloshaada haddii aad doonaysid inaad waqti ku bixiso waxyaabaha majaajilada ah, waa inaad u isticmaashaa si caqli leh. noloshu aad bay u fudud tahay inaad tanaasul samayso. raac riyooyinkaada xitaa haddii aad si kadis u ogaato inaysan u socon sida saxda ee aad rabtay. dib ayaad ka ogaan doontaa waxa waaye aragnimo ah ee kaaga kordhay intii aad waday. qodobka 6, cabsida. cabsidu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu adag ee aan la kulanno marka aan rabno inaan isbeddel samayno. ha u ogolaani inay ka adkaato riyadaadu cabsida kusoo wajahaysa. qof kasta oo kugu dhiirageliya in riyooyinkaada aad rumayso uu kuu baqay, iyadoo aan laga reebin shaki ama cabsi. laakiin tallaabo kasta waxaa jiri doona iftiin iyo mugdi intaa ka yar. marka riyadaada guusha ay soo dhawaato ayaad dareemaysaa farxad badan. waa sida adigoo la aqalgalay qof aad halgan jacayl sanado badan soo wadeen, ma waxaad dareemaysaa farxad mise cabsi. qodobka 7, fashil. mar walba oo aan rabno inaan isbeddel samayno waxaan ka cabsannaa fashilka, guul darrada, wejigabax. taas ayaa noo ah in aan ka cabsanno inaan riyooyinkeenna horey ugu soconno. qalad ma jiro, fashilna ma jiro. sheeko kasta oo guul ah waxay ku bilaabanaysay silsilado guuldarrooyin ah. waa xeer. ganacsaduhu wuxuu la kulmaa khasaaro bilowga ganacsigiisa. qofka wax baranayana marka ugu horreysa wuxuu dareemayaa hoos u dhac iyo qanacsanaan la'aan dhanka waxbarashada ah. gabayaagana waxaa laga yaabaa in la dhaleeceeyo, laakiin wax walba waxay u socdaan si toos ah. haddaad ku guulaysato inaad hesho hal qaab oo aad guushaada ku gaarto, waxaad heshay furaha guushaada. guuldarrooyin kasta waxay kugu soo dhaweynayaan rajadaada. ugu dambeyntiina waad fahmi doontaa xalka. ma jiraan wax cudurdaar ah oo lagu joojiyo isku dayga, maadaama mar walba oo guul la doonayo ay tahay inaad sii marto waddada guuldarrooyinka. waad kacday oo aad dhaqaaqday. waa intaas oo keliya. nolol dheeriya iyo fursado dheeriya ma jiraan. waa isku daygaaga oo keliya. ha khasaarin fadlan. qodobadan isticmaalnay waxay ahaayeen in indhahaagu ay furnaadaan mar walba, inaad samaysato qorshe, hal dhiirigelin, inaad raadiso fursado, inaad dhegaysato naftaada, in aadan ka cabsan guuldarrada, iyo fashilku inuu yahay waddada guushaada. ma waxaad isku dayi doontaa inaad naftaada u horseedo guul? aragtidaada hoos inoogu reeb. muuqaalkeennii maantana